Ciidamo si gaar ah loo tababaray oo ka tirsan militariga dalka Itoobiya ayaa loo diyaariyay sidii ay u ilaalin lahaayeen ammaanka ra'iisul wasaaraha Itoobiya, Mr. Abiy Ahmed, iyo madaxda kale ee xilalka sare ka haysta dalkaas. Ciidamadan waxaa la sameeyay markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ka badbaaday isku day lagu qaarijin rabay. Sidoo kale, cabsi aad u weyn ayaa ka jirta dalka Itoobiya, taasi oo laga qabo in la qaarijiyo madaxda uu ka mid yahay Abiy Ahmed iyo kuwa taageersan ee dowladda uu madaxda ka yahay hoggaanka looga dhigay. Cabsidaas waxaa inta badan laga qabaa qowmiyaddii hore ee talada dalkaasi muddo dhowr sano ah haysay, taasi oo laga cabsi qabo inay dhibaatooyin ka geystaan dhowr jeer dalka Itoobiya. Muddooyinkii dambe waxaa kasoo muuqanaya warar dhilo colaadeed oo muujinaya in ciidamada ammaanku ay qabteen bambooyin rag hubeysan, waxaana inta badan xabsiga la dhigay saraakiishii maamulkii hore la shaqeyn jirtay. Ciidamadan cusub ee ilaalin doona Abiy Ahmed ayaa loogu magac daray Ilaalada Jamhuuriyadda, waxaana loo dhammaystiray tababaro xirfado sare ah, sida ay xaqiijiyeen xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamadan ay qayb ka yihiin laamaha ammaanka dalka Itoobiya, waxaana xusay in ciidankan ay dhowri doonaan sarreynta sharciga. Abiy ayaa ka qayb galay dhoolatus ay ciidankan soo bandhigeen, waxayna ciidankan cusub ra'iisul wasaaraha hortiisa kusoo bandhigeen awoodda ay u leeyihiin iyo heerka ay u gaarsiisan yihiin inay cadowga ka difaacaan Abiy Ahmed. Ciidamadan cusub ee loo diyaariyay in khatarta ay ka ilaaliyaan madaxda sare ee dalka Itoobiya ee Abiy ugu horeeyay ayaa la siiyay hub casri ah oo ay ku howlgalaan, waxaana ciidankan ay yihiin kuwo si gaar ah loo soo xulay.